iyo solkii habar jala waraxley saddex nin oo habar jala ayaa ciise haystaa oo aftuubtay gobolka sida joogay waxa weeyaan weynugan habar jala iyo solkayow waxa weeyaan gabadha la kufsaday ee beesha ciise ma ahan gabar ka soo jeeda reeraha kale ee waxay ka soo jeedaa reerka ciise ciise dhammaantii wuxuu diyaar u yahay inuu dagaalamo oo u dhinto gabadhii lagu kufsaday darteeda xitaa waxay diyaar u yihiin inay la baxaan islamarkaana ay goostaan gebi ahaanba gubaniseed beesha ciise ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u xustay goojacadda wixii ka dhacay iyadoo ay sheegtay in goojacadda dadkii iska xoreeyey ee somalilan aanu iyagu ka liidanin islamarkaana ay shaaciyeen in beesha dhulbahaatay wixi ay ku dhigeen ee somalilan ciidankeeda mid la mida ay ku dhigi karaan awoodda taa iyadana ay leeyihiin ciidamo ka tirsan ciidan kuwa somalilan ayaa la xaqiijiyey inay geysteen falka kufsiga ahaa lagula kacay gabadh ka soo jeeda ee reerka ciise islamarkaana ee maalmihii u dambeeyey la hadalhaayay hadalhayntii ugu xooganeed ay ka dhalatay kadib markii ilaa iyo 3 qofood oo ka soo jeeda ciidanka somalilan si rasmi ah loo shaaciyeen iyagu ay hayeen cidda sida rasmiga u geysatay ee kufsiga ugaaska guud ee beesha ciise wuxuu ka yidhi arrinkan ee kufsiga loo geystay ee gabadha isagoona war xoog leh soo saaray uqaasha kale ee reerka ciise ka soo jeeda islamarkaana ay kala joogaan etoobiya iyo jabuuti oo iyagana war ay rasmi ay ka soo saareen ee arrinkaa ee kufsiga ee lagula kacay ee gabadha ka soo jeeda ee beesha ciise iyo arrimo kale oo xasaasiya oo muhiima oo halkaa ee ka jira ayaa idinkula wadaagaya halkan daawadayaasheena sharafta leh marka hore haddaan lagu cusubtiin lagu soo dhiir subscribe saar janalka laalgaray sheergaray muuqaalka asxaabtaada sii gaarsii mahadsaned aynu gudagalno gabadha la kufsaday ee ka soo jeeda ee reerka ciise ayaa ugu dambeyntii ee dhammaan reerka ciise ay u kaceen iyagoona si mid ay u sheegeen in gabadha la kufsaday aanu ahayn keliya gabar shakhsiya oo la kufsaday laakiin taa ay ku sheegeen inay tilmaamayso in kufsigan loo geystay dhammaan reerka ciise waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin culus islamarkaana ay kaga hortagi doonaan arrinkan iyagoona ay shaaciyeen in reerka ciise ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan islamarkaana iska dhacashaan ee cadowga ay ula jeedaan gudubbuursaha iyo si lamid ahba ciidanka somalilan gaar ahaan beesha isaaq ilaa iyo 3 dheer askari ayaa si rasmi ah ugu lug yeeshay arrinka ee kufsiga loo geystay ee gabadha iyadoo ciidanka somalilan lagu soo tabinayay deegaanada ee salal halkaas ay joogeen iyo ogal maalmihii u dambeysay in dhaqan xumo iyo si lamid ahba tacadiyo ay halkaasi ka geysanayeen ee maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in halkaasi ay ka wadeen ciidanka somalilan iyadoona la sheegay inay ka bilaabeen dhaca iyo kufsiga ay u geysanayaan haweenka sidoo kalena ay ku xadgudbayaan carruurta iyo dadka waayelada islamarkaana ay naxariis aysan u samaynaynin askarigii ugu horreeyey oo ka soo jeeda habar jeclo waa ninka muuqaalkiisa aad aragtaa igu tusay ayaa ahaa qofka dariiska dhigay islamarkaana kadib anshaxumadii ee ka dhacday ee meesha loo yaqaano gargaaro galbeed halkaasi oo lagu geystay gabar ka soo jeeda reerka ciise fal kufsi aad u naxdin badan gabadha beesha ciise kufsiga lagu geystay ayaa waxaa falkaa loo hayaa sida la sheegay askar maxaabiis ah oo magacyadooda iyo beelaha ay ka soo kala jeedaan ee lagu sheegay sida tan cabdisamed aadan faarax isaaq oo ka soo jeeda beesha habar jeclo iyo si lamid ahba suhey cabdi aadan isaaq isaguna habar jeclo ah halka ninka loo yaqaano sadaam isaguna yahay habar jeclo oo gaar ahaan qorilugud qofka afraad ayaa lagu sheegay inuu yahay jaamac oo ka soo jeeda habar yeelis islamarkaana burco uu ka soo kaxtamay afartaa qof ayaa lagu sheegay inay ahaayeen dadka sida degdega ugu fuliyey ee kufsiga gabadha islamarkaana ay ahayd gabar masaakiina oo gargaaro galbeed halkaasi la sheegay inay xilli xun ay gabadha ay qabteen islamarkaana nolosha ay ku sulciyeen kufsi xoogan ay u geyseen beesha ciise ayaa dhammaan si aad uga amootay kadib markii gabadhii la geeyey ee baaritaano waxaa la ogaaday in gabadha loo geystay kufsi aan xadkeeda ahayn xitaa aysan xamili karin ayaa lagu sheegay in 4 qofood loogu tagay gabadha 4 qofood ee gabadha kufsatay markii la weydiiyey ee ragga sawiradeeda la tusay ayaa la sheegay inay aqoonsatay ragga geystay ee tacadigan iyo kufsigan inay ayagu ay ahaayeen
waxay sheegtay in 4 qof la xusay sawiradooda la tusay inay iyagu ay ahaayeen islamarkaana ay sheegtay inay ka mid ahaayeen dadka dhibaatada geysay. xaaladdaasi ayaa faraha ka sii baxday. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ayaa halkaasi ka jira. ciidanka ee Somaliland ayaa kala shaki soo dhexgalay iyadoo ciidamada ka soo jeeda reerka Ciise oo ku jira ciidanka Somaliland la sheegay in si gaara banaanka u istaageen islamarkaana ay sheegeen laba mid inay noqon doonto arrinkaa ama inay aarsan doonaan oo gabar isaaqa inay iyagu ay kufsan doonaan ama haddii aysan dadka loo ciqaabi doono oo loo dili doono haddii kalese geedda xeer Ciise ciqaabtiisa lagu qaadi doono iyagoona ay sheegeen intaa marraba aysan aqbali doonin. dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ayaa halkaasi oo laga soo teginayay iyo si lamid ah xaaladii ugu dambeeyey iyadoo dhinaca kalena dalka Jabuuti laga soo sheegayay in mudaaharaad laga hordhigay gabar burbursa oo halkaasi doonaysay inay ku soo bandhigto mid ka mid ah buugiyadeeda. gabadhaas oo buugiyeeda oo isaga gaar ay u qortay ayaa la sheegay inay doonaysay inay soo bandhigto kadibna ay noqotay mid fashil ku soo dhamaata ee qoritaanka ee buuggeeda kadib markii xafladii lagu soo bandhigay buugga ay hareereeyeen mudaaharaadyaal aad u caraysan kuwaasoo sheegaya inaysan marraba aqbali doonin in gabadhan ay buuggeeda ay soo bandhigto iyagoona ay shaaciyeen taasi marraba aysan ahayn wax iyagu ay aqbali karaan waxayna carabka ku adkeeyeen inaysan marraba ka hari doonin oo aysan marraba aqbali doonin in gabadha buuggeeda ay soo bandhigato si xorana iyaduna ay u damaashaado iyagoona ay shaaciyeen inaysan taasi marraba ahayn maadaama iyagu laga diiday xeer Ciise inay soo bandhigtaan oo si xornimo leh ugu dhex mushaaxaan ee deegaanada halkaasi waxaana carabkooda ay ku sheegeen ay ku adkeeyeen inaysan marraba aqbali doonin islamarkaana aysan diyaar u ahayn marraba inay aqbalaan in xeer Ciise lasoo bandhigo iyagoona ay shaaciyeen oo ay sheegeen inaysan marraba diyaar u ahayn in xeer Ciise si rasmi ah loo qabto waxayse sheegeen inaysan taa arrinkaa iyada marraba diyaar u ahayn. xeer Ciise ayaa lasoo bandhigay. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ayaa halkaasi ka jira waxaase la soo tabinayaa inay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey reerka Ciise ay ku doonayaan inay duulaano adag oo rasmi ah halkaasi ay ku qaadaan waxaa lagu sheegay in reerka Ciise uu u diyaar garoobay dagaal adag islamarkaana lagu wajihi doono reerkan oo lagu sheegay inuu yahay dagaalka mid aad u xakarin xaaladana uu sii xumeyn karo. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey oo beesha Ciise ay wado ayaa halkaasi ka socda iyadoo aan leeyeyn habka iyo qaabka iyo nidaamka ay wax u socon doonaan lama ogase halka ay wax ku dambeyn doonaan laakiin waxaa la soo tabinayaa in reerka Ciise dhammaantiiba u diyaar garoobay dagaal ka dhana dowladda Somaliland. beesha Ciise ayaa la sheegay inay la soo baxeen hub iyo dabaabaad culus islamarkaana ay diyaar u yihiin inay ku weerar tagaan iyadoona la sheegay inaysan marraba ka aamusi doonin arrinkaa iyo falalkii foosha xumaa ee halkaasi ka dhacay loo geysay gabadha waxayse si rasmi ay u shaaciyeen carabkoodana ku adkeeyeen inay diyaar u yihiin inay arrinkaa ay ka diriraan islamarkaana ay dagaalamaan laakiin marraba aanu tanaasulin. xaaladii ugu dambeysay ayaa laga soo tabinayaa gargaaro galbeed waa halka dhacda sida rasmiga ugu dhacday islamarkaana ay ku sheegeen inay iyagu ay ka aamusi dooneen arrinkaa waxaysena carabkooda ku adkeeyeen inay diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabooyin muhiima. dhinaca kalena warar kala duwan ayaa laga helayaa oo lala xiriiro colaadda ka socota mar kale goobtaasi kuwaas in la doonayo in lagu soo wareejiyo gudaha deegaanka ee Soomaalida. ilo xogeyaal ayaa tilmaamaya in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Abdukhalifa islamarkaana muddo la sheegay ku sugnaa magaalada Boorama oo waday dadaalo la xiriira sidii culayska colaadeed loogu leexin lahaa ee Somaliland islamarkaana loo geyn lahaa gudaha deegaanka ee Soomaalida gaar ahaan dhanka degmada loo yaqaano Dambal ee gobolka City. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa diyaariyay ciidamo ay maleeshiyaad beeleed iyo dhalinyaro baraha bulshada ku bilaabo horinta colaadda gudaha ee deegaanka gaar ahaan degmada Dambal kuwaas oo faafinayo hadallo kicinaya bulshada labada beelood si Dambal ugu bilaabato dagaalka. waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Rooda Baroon oo qayb ka ahayd dadkii markii hore hurinayay colaaddaasi oo ka taagan gobolka Oodal islamarkaana ka soo jeeda deegaanka Soomaalida iyagoona oo taageero ay ka helayso xubno kale oo ku sugan gudaha deegaanka Soomaalida. sidaa darteed ayaa lagu codsaday hay'adaha ammaanka deegaanka waa inay ka warhayaan ficilada iyo xaaladaha noocaasi. daawadayaasha sharafta leh intaas waxay ahaayeen wararkii ugu muhiimsanaa ee kaga hayay Ciise iyo Samaroonka iyo Somaliland
xaaladii ugu dambeysay galbeedka Somaliland. Dhammaan magacyada halkan aynu ku xusnay aynu ku sheegnay inay ka dambeeyeen kufsiga iyo tacaddiga loo geystay intaasi weli maxkamad lama soo istaajin. Sidoo kale waxay ahayd warar aynu ka soo xignay saxaafadda halkaa ka jirtay iyo si lamid ahba dadyo kala duwan ay si rasmi ah u sheegeen dadkaas ay ahaayeen, laakiin iyagu si madax bannaan uma xaqiijin karna arrinka. waxaad ogaanaysa wixii update oo ku saabsan ee arrinka iyo warar kale ka soo kordha halkan oo gunta wararka ayaad kala socon doontaa. waa anigoo Cali Shijaac. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.